أكبر الله أكبر. isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho ayaa salaada janaasada waxaa lagula tukaday allah u naxariistay luul cabdilcasiis oo muddo bil iyo dhowr beri ah ee ku jirtay faranjeer gudaha isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho kumanaan ka mid ah dadka ku nool magaalada muqdisho ehelada marxuumadda iyo dadyo kale ayaa ka soo qayb galay salaada janaasada ee allah u naxariistay luul cabdilcasiis oo maanta lagu aasayo magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gaar ahaan deegaanka Jazeera dad aad u fara badan oo ka soo qayb galay salaada janaasada ee marxuumadda ayaa waxa ay tacsi u direen ehelka marxuumadda iyagoona marxuumadda alla uga baryay in uu jannadiisa firdawsa ka waraabiyo qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay salaada janaasada ee halkan lagula tukaday marxuumad luul cabdilcasiis ayaa telefishinka Universal la hadlay tacsina la wadaagay ehelka marxuumadda iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed khayr aad weyn aan dareemeynaa maadaama garabkaaga uu go'ay waa dareemi kartaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan in ka wada baxday luul Allah u naxariisto jannatul firdawsa Allah ku casuumo waxaan ilaahay uga rajaynaynaa meel fiican inay tagto insha Allah wallahi wax la soo koobi karo oo indhaha bini aadamka ay soo koobi karaan ma ahan ma sha Allah dadka nagala soo qayb galan way ku mahadsan yihiin dhamaantood wariyaasha dhammaantood way ku mahadsan yihiin dadka Soomaaliyeed ee aaskan ka soo qayb galan way ku mahadsan yihiin dawladda mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku celcelinayaa ninkaas toogashadiisa inay saan public u ahaato ay wax marhoosaadina ee dhicin dawladda indha badan ku soo foorarto waxa inay cadaalad wadanka ka jirtana waxa lagu ogaanaa luul cabdilcasiis sida loo fuliyo xukunkeeda waxaan maanta ka soo qayb galay tacsiida luul cabdilcasiis ilaahay waxa uu naxariisto ilaahu rabbiyo raxmaan waxa ilaahay uga baryeynaa ilaahay jannadii ilaahay ku waraabiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacay waa macni sarxaan xuseen cumar maanta taariikhda ay marayso maalinta jumcada 8 maanta waxaan ku dukanay walaashayna luul cabdilcasiis waxaan leenahay allah u naxariisto waalidkeedana waxaan leenahay inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajali musamma فلتصبر وتحفظ إن شاء الله تعالى إلهي جنة الفردوس الله قالي إذا نسيبت معنا الجمعة تهي وحدنا جميع عبدنا أي شيء إن شاء الله وحنا رجينا الجنة إن شاء الله ولا شيء ولا شيءنا لول عبد العزيز إلى مع الله حدنا عاد وحنا وفرح سنة لكم قص ومدنا محمد أسكو ماضي الحمد لله كل حال إلى مع الله إلى مع الله طلب بعضنا وحواي ومدنا محمد نمانته معنا الحيكو وجماعة معنا فرحته وحالنا إلهي qabrigeeda ha u waasiyo jannatul firdaws Allah ka waraabiyo waxaan u duceynaynaa marxuumad luul cabdilcasiis aan ka soo qayb galnay janaasadeedii waxaan ilaahay u rajaynaynaa maadaama adduunyada ay ku gubatay in aakhira ilaahay ahlu janno ka dhigo oo ilaahay u naxariisto waxaan marqaati ka nahay inta ka soo qayb gashay janaasadeeda oo aad u badneed inay ahlu janno tahay waxaan ilaahay u rajaynaynaa insha Allah jannatul firdaws ilaahay inuu siiyo annagana gadaasheed ilaahay inuu sanna fidnayn intaas kadib waxaan diyaarinay wax walba oo bulshada Soomaaliyeed ay nagala qayb qaadan karaan in ay maaragtay aaskii deegaanka Jazeera waxaan ku diyaarinay baabuur degmada Kaxda ee gobolka Banaadir guddiyan ku diyaarinay sidaas la mid ah isgoyska korontada waxaan ku diyaarinay baabuur iyo guddigii dadkii oo dhan ummadda Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u cadeeyno mar kale mowqifkeennii inuusan waxba iska bedelin ee ku aadanaa ilaa tiirka laga geeyo dambiilaha ololihii cadaalad raadinta luul maadaama wajigi koowaad la helayna intaasna aan sii wadi doono soo dhawaada leenahay aaska walaasheen luul cabdilcasiis Allah u naxariisto jannatul firdaws Allah geeyo waa shahiid aakhiro waxa dishay gacan ka xaq daran waxaan leenahay walaasheen Allah u naxariisto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh musiibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim wa rahma ulaa'ika hum muhtadun walaasheen luul cabdilcasiis Allah u naxariisto qabrigeeda Allah waasi'amada waxa jinaasada ku tukanay isbitaalka digfeer waa ku tukan maanta aaskeena ilaa geena Jazeera insha Allah naxariis qabri Allah waasi'o insha Allah meedka ayaa hadda loo qaaday deegaanka Jazeera ee duleedka magaalada Muqdisho halkaas oo qorshuhu yahay in maanta oo Jimcaha lagu aaso luul cabdilcasiis aaska luul cabdilcasiis ayay eheladu sheegeen inay ka dambeysay kadib markii maxkamadda gobolka Banaadir ay xukun dil toogasho